maanta waxaa arkaysiin oo aniga taariikh taabatay ii ah oo waxaan weligay hilmaami doonin ii ah gabar walaashay ah gabar Soomaaliyeed ah oo checkpoint joogto oo maalinkii ay umuleysay iyadoo 9 bilood ah checkpointigan laga waday tiri anigoona gaarin meeshii loogu talagalay inaan dhalo ayaan dhax ku fooshay anoo gaarin isbitaalkii leegugu talagalay inaan ku dhalo ayaan dhaxda ku dhalay maantana iyadoo cunugeedii oo 9 bilood jiro 9 bilood jiro iyadoo oo haysato inay taagan tahay checkpointiga oo ay weli toole shaqadii hayso baaritaan inay hayso cunugeedana meesha inaas ku nuujinayso wallaahi bilaa waxaan itaabta waaye laakiin taariikhda ayaa xusi doonto annaga ka dawlad goboleed ahaanna waa isku noqonaynaa gabadhaas walaashay ah ma hilmaami doonno arrinteeda waxbaan ka qaban doonnaa waa garab istaagi doonnaa waxaan rabaa inaan ummadda koonfur galbeed Soomaaliya hal arrin ugu baaqo waxaa u jeediin reer xuntur inay tashteen waxaa u jeediin gabadhaas walaashiina cunugeeda xambaarsan inay tashatay waxaani laga rabaa inaad tashatiin waxaani laga rabaa inaad hay'adaha amniga ka mid noqotiin waxaani laga rabaa inaad amniga ka qayb qaadatiin waxaani laga rabaa maamulka inaad la shaqaysiin waxaani laga rabaa dalkiina inaad si isku tashi ah aad ku difaacatiin oo aad ku dhisatiin annaga ka maamul ahaan waxaan leenahay madaxweynayaasha ugu qiimaha badan madaxweyne Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen oo ah madaxweyne aad u qiimo badan oo dal jecel oo dad jecel oo ummadan waxba ka agrinaynin waxaan aaminsanahay oo aan ogahay 100% hadday ummadda gacmaha isqabsato dhulka koonfur galbeed inuu noqon doono dhulka ugu qanisan